raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane raxmadii ilaah iyo dadyo waatan rabadaane rajab waa dhammaato shabcaan reesto taban baa waqtiyada isrixo iyadoo roraysay timideen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaynu baran doonaa sidee loo qortaa jadwal aad waqtiga aad ku maareyso waxa laga yaabaa in marar badan aad isku dayday inaad jadwal dejisato laakiin aad garan weyday sida jadwalka loo qorto ama laga yaabo in jadwal aad qoratay haddana aad ku dhaqmi kari weyday marka maanta waxaynu baran doonaa bal sida cilmiga ee loo qoro jadwalada dadka badankoodu haddii la yiraahdo jadwal qora ama jadwal dejiya waxa laga yaabaa inay u qoraan ama u dejiyaan sidan soo socota midna kani waa jadwal iska khiyaali oo ugu talagalay oo tusaale ahaan sida macnaha waxaynu ku tusaaleynaynaa oo dadka badankoodu qaabka ay jadwalka u qortaan waxa laga yaabaa inuu raado midna 6 ilaa 8 aroornimo markuu saas wax soo kaca kadib 6 aroornimo ilaa 8 waxa laga yaabaa inaad qoratid akhris waxbaan akhrisanaya 8 ilaa 8 barka waxa laga yaabaa inaad ku qorato break macnaha waa quraacdii iyo nasasho 8 barka ilaa 11 wax dhigasho online education macnaha wax ka dhiganaysaa online-ka 11 ilaa 12 waxa laga yaabaa jadwalkaaga inaad ku qorato jimicsi inaad jimicsi aad gasho 12 ilaa 12 barka waa salaadii 12 barka ilaa 1 waa qadadii dadka badankoodu jadwalka sidii u qortaan u dejistaan waa sidan oo kale haddii aad waxaad maskaxda ku haysaa sidaas oo kale aad jadwal u qorato waxaad maskaxda ku haysaa in aanu weligii aanad ku dhaqmi doonin weligiina aanad fulin doonin waayo jadwalka noocaas oo kale ah cid qori karta cid fulin karta iyo cid ku dhaqmi karta midna ma jirto marka maanta waxaynu baranaynaa sidee baa jadwalka loo sameeyaa jadwaladu waa laba qaybood sidaynu baran doono mid waxa loo yaqaan waa jadwalka shaqada midna waxa loo yaqaan waa jadwalka waqtiga marka waxaynu marka hore ku bilaabaynaa jadwalka shaqada haddaba aynu wada buuxino jadwalka loo yaqaan jadwalka shaqada saad arkaysaan jadwalka shaqadu waxa uu ka kooban yahay 5 qaybood 5 bogos ayaad u banaynaysaa markaad samaysanayso bogoska koobaad waxa aad ku qoraysaa waa telefonka ama waxa weeyaan waa foonka halkaasi waxaanu ku buuxinaynaa qof waliba wuxuu isweydiinayaa oo fikiraya waxa uu leeyahay imise qof ayaad u baahan tahay inaad la hadasho ama maxaa shaqo ku saabsan dhinaca telefonada maxaa ku taala mar walba maskaxda waxaad ku haysaa midlan waxa laga yaabaa maalin walba inaad la hadasho midlan saaxiibka ama maalin walba waxa laga yaabaa inaad la hadasho waalidka telefonada kuwa lagu darsanayo telefonka halka waxa lagu buuxinayaa waa qof aad hawl uga baahan tahay oo telefonkiisa uu ku yaalo welina aanad lahdin bal tusaale ahaan haddii imka aan soo qaato waxa laga yaabaa inuu jiro hebel oo lacag ku leeyahay marka midlan halkan waxaan ku qorayaa waxaan u baahanahay Khalid waayo waxaan ku lahaa isaga lacag one time baan u baahanay marka inaan la hadlo haddii tusaale labaad midlan aan soo qaadano telefon ku yaala inaad qof la hadasho waxaad ka soo qaadaa midlan inaan qof qaraabadaada kamid ah magaciisa dalka ku qori doontaa oo aanad laga yaabo inaad in badan la hadal imka bishii Ramadaan baa lagu jira talo qaraabadaadii aanad wali la hadal halkaas ayaad ku qoranaysaa sidaas oo kale ayaad u taxaysaa marka waxaad maskaxda ku haysaa halkan lagu darsanayo telefonka dadka aad maalin walba la hadasho midlan waalidkaaga kale saaxiibka dadka aad asxaabta tihiin oo kale waxa soo dhan lagu darsanayo inta halka aad la hadasho marka qaybta koobaad waxaan ku buuxinayaa waa telefon qof walba fikir maskaxdaada waxaad ka fikiraysaa talow yaa ay ahayd inaad la hadasho oo aanad wali la hadal shaqada marka dhinaca hadalka ku taala ama telefonka ayaad halka ku qoranaysaa halka labaad ama laynka labaad waxaan ku buuxinayaa waxa weeyaan waa shaqo rasmi ah ayaan ku qorayaa halka waxaad ku qoraysaa dhammaan shaqooyinka officialka ee rasmiga ee loo baahan yahay ee adiga laga rabo bal waynu kala sheegi doonaa waxay tahay shaqada rasmiga iyo shaqada aan rasmiga ahayn midna waxa laga yaabaa markaad maskaxdaada celiso halka waxaad ku qoraysaa wax alle iyo waxa shaqo ku yaala oo dhan midna tusaale ahaan anoo kale imka macallin baan ahay haddaan fikiro shaqo itaala haddaan isweydiiyo inaan diyaarin imtixaan oo kale ina imtixaan diyaariyo ayaa la iga baahan yahay adigoo kale haddaad arday tahay waxa laga yaabaa in assignment lagu soo diray uu jiro adoo almuhiim shaqo waxa la rabaa mar aad qabanayso oo ka dhamaanaysa waxa laga yaabaa haddaan fikiro maxaa kala shaqo itaala maskaxdaada ayaad fikiraysaa halka waxaad ku qoraysaa wax alle waxa shaqo ku yaala maxaa talo shaqo haddana itaala shir baa laga yaabaa
marka meeting baa laga yaabaa ama shir inaan leeyahay maskaxdeeda waad fikiraysaa marka maskaxdaada kugu soo dhici doontaa wax aliya wixii shaqo ku taagan waxaa laga yaabaa in report aan qoro la iga sugayo halkaa marka qof walba dee adiga yaqaana shaqada waxa ku taala halkaa marka bundleka labaad ama laynka labaad waxaad ku qoraysaa wax alle iyo wixii shaqo ku yaala shaqada marka waxa loo yaqaan waa shaqada rasmiga waa shaqada uu qof kale ka rabo imtixaan diyaarin ani qof kale iga rabo jaamacadda iga baahan shirka dad kale iga baahan inaan la shiro report inaan diyaariyo qof iga sugaya marka shaqo kasta oo rasmi ah oo qof kale ka sugayo ayaad halkaa ku qoraysaa qodobka saddexaad ama page-ka saddexaad waxa lagu buuxinayaa waxa loo yaqaan waa guriga halkaa waxaad ku qoraysaa shaqo walba oo kaaga taala guriga waxa laga yaabaa haddii aad maskaxdaada celiso fikirto alaabaha qaarkood guriga uga baahnayd oo kaa maqan oo kale inaad soo iibsato marka halkaa waxa laga yaabaa inaad soo iibinaan ku qoro soo iibinaan waa iska tusaale uma idin ku qoray laakiin wixii aad soo iibsanaysid wax kasta oo gurigaaga u baahan yahay oo aanad weli aanad qabanin ayaad halkaa ku qoraysaa matalan waxa laga yaabaa gurigu inuu kaaga baahan yahay hagaajin oo kale meelaha qaarkood wax kaa xumaaday waxa inaad hagaajisato samaysato marka shaqo walba oo guriga kaaga taalana halkaa saddexaad ayaad iyadana aad ku qori doontaa waa yahay qodobka afraad markaynu u gudubno waxa weeyaan waxa loo yaqaanaa tani waxa ahayd waa shaqadii rasmigii tan waxaa la yidhahdaa waa shaqo gaara halkaa afraad waxaa lagu buuxinayaa dhammaan shaqada gaarka oo dhan shaqada gaarka ee shaqada rasmigii mid bay ku kala duwan yihiin shaqada rasmigii saynu hore usoo sheegnay waxay ahayd waa shaqada uu qof kale kaa rabo laakiin shaqada gaarkii waa shaqada adigu naf ahaantaada ama shakhsi ahaantaada kuu taalla inaad qabsato bal haddii imika aan tusaale soo qaato waxyaabaha shaqooyinka gaarka aniga ii yaallo kale waxaan jeclaa waxa ka mid a inaan muxaadaro soo dhegeysto muxaadarada soo dhegeysigeedu waa shaqo aan jecelahay anigu inaan qabsado laakiin de khasab maaha waan soo dhegeysan karaa waan iska din karaa laakiin waan rabaa inaan soo dhegeysto waan fikirayaa marka maxaa talow shaqo gaaro anigu aan leeyahay ii taalla nimanka ciidii oo kale soo dhow ramadaan baa lagu jiraa waxa laga yaabaa in safar ama rixlo aan u baxo ciidii markay gaadho halkaasaan ku qorayaa marka imika kuwan tusaale ahaan baan u qoray waan soo koobay meeshuna way nagu yar tahay laakiin adigu jadwal ballaaran baad samaysanaysaa oo aad mid waliba aad ku hor qorato mar walbana waxaa maskaxda ku haysaa weli waxaan taariikhdoodii kuma qorin goormaan riboodka dhiibaya goormaan khaalid la hadlaa goormaan alaabta soo iibiyaa goormaan safarka baxaya jadwalkan waxa loo yaqaan jadwalka shaqada laguma qoro wax taariikha dhammaan waxaad ku taxaysaa shaqooyinka ku yaala waa yahay matalan waxa laga yaabaa shaqada shaqooyinka gaarka ee yaala inaan dhakhtar u tago oo kale haddii aad xanuunsanayso waxa laga yaabaa in matalan aroos ama xaflad oo kale aan tago waxaas oo dhan waa shaqooyinka gaarka anigu aan gaarka u leeyahay ee ii yaala halkaas ayaan iyagana aan ku taxayaa waxa ugu dambaysa jadwalka shaqada waa dhaqaalaha dhaqaale ayaan ku qorayaa dhaqaalaha waxaad ku buuxinaysaa laba arrimood arrinta koobaad waxa weeyaan waa wixii deyn lagu leeyahay waxa laga yaabaa maanta dembi haddaad gasho dembi kasta inuu ilaahay kuu dhaafo subxaana wa tacaala laakiin deyntu waa xaq bini aadan lagaama dhaafayo ku shilin hadduu qof kugu lahaa waa lagugu leeyahay haddaad xataa dhimato waa lagugu cadaabaya marka halkaa waxa fiican inaad ku qorto dhammaan wixii deyn lagugu leeyahay oo dhan waxa kalood ku qoraysaa ciddii adigu aad deyn ku leedahay halkaa matalan waxaan ku qorayaa cali waxaan ku leeyahay matalan ka soo qaad $10 waxaan ku qorayaa halkaa usaama waa dadkii aan wax ku lahaa oo dhan ayaad halkaa ku qoraysaa $5 baan ku leeyahay aniga waxa laga yaabaa in muxuu ahaye cabdi uu igu leeyahay $20 saas oo kale halkaa markaa waxaa laga rabaa inaad ku taxdo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dardaarmay in qof waliba way wax kasta dhici kara laga yaabaa caafimaadka iminka aad hayso ee muuqaalkan oo kale ku daawanayso inaad berri hayn weydaa suuragala marka jadwalkaaga shaqada sida ayaad u diyaarsanaysaa su'aal baynu haddaba isweydiinaynaa jadwalkani muddo intee leeg baa lagu dhaqmayaa jadwalkani muddo male dhammaan waxaan ku soo ururiyey wixii shaqo ii taallay oo dhan waayahay haddii haddaba waxaad ka soo qaadaa shaqooyinkaa mid ka mid a aan qabto maxaan samaynayaa simbali waan iska masaxayaa matalan diyaarin itixaama xagga ku qoray itixaankii waan diyaariyeyba waan ka masaxayaa jadwalkii waaye waxaad ka soo qaadaa shaqo cusub oon kuwan ahayn ayaan xasuusta oo ii soo korodhay waan kusii dabadarayaa shantaa meelood meeshii ku jirto ayaan kusii dabadarayaa halkaa haddaba maxaa iigu qoran waxa ii diyaarsan jadwalkii loo yaqaanay jadwalka shaqada ama waxa la yidhahdo to-do list to-do listigu waa muhiim qof walba inuu lahaado jadwalka shaqada iminka lagama yaabo anigu shaqo ii taale inaan iloobo sideen u iloobi jadwalkaygii waa kan jeebadaan ku sitaa
lagama yaabo shaqo ii taale inaan dayaco sidaan u dayaci halkan ay ku qoran tahay marka la sameysanayo jadwalka waxa laga bilaabaa to do listiga ama jadwalka loo yaqaano jadwalka shaqada maanta to do listigu horumaray waxaan horumariyay technology-ga cusub ee soo gaarnay imika matalan teleefankaaga Play Store-ka ama App Store-ka haddaad ku qorto kaliya kelmadda to do list haddaad qorto waxa uu teleefankaaga ku soo dhigayaa malaayiin apps iyo application kala duwan oo to do listiga ka caawinaya marka qof walba muxuu ahay gal App Store-ka ama Play Store-ka teleefankaaga waxaad ku qortaa to do list ama imika si mani waliya ayaan sameeyay oo gacanta ayaan ku qorqoray tiyo electroniga ayaa teleefankaaga aad kala soo digi kartaa kadibna sidaa kuugu habaysan mid walibana shaqadaada ayaad ku buuxinaysaa shaqo haday soo korodho waad ku sii daba daraysaa shaqo hadii la qabtana waad ka jaraysaa saasa marka loo diyaarsadaa jadwalka shaqada halka hadaba kuma dhamaanin waxa ay noo haray jadwalkii labaad hore waxaan soo sheegnay in loo baahan yahay qofku inuu yeesho qof waliba laba jadwal jadwalkii labaad baa inoo haray waa jadwalka loo yaqaano jadwalka waqtiga kaana waxaynu qaadan doonaa hadii Ilaahay nagarsiyo maalinka bari insha Allah taala maanta xalqadeeni halkaas ayay inoogu joogaysaa aad iyo aad wada mahadsantihiin